dhawaanahan waxaa soo baxayay suldaan ku baaqayay qalalaase colaad iyo qoriga la qaato oo qaranka la dumiyo. waxaan leeyahay Soomaaliland waa qaran tashaday, qof kaliya ma dumin karo. qaar hore isugu dayna way ku fashilmeen. shacabka reer Soomaalilandna waa ka tashadeen qof wada qaloocan iyo qorshe guracan ku baaqaya. waa la yaab suldaan qori qaata ee suldaan samatalis ah. suldaan samatalis baa lagu ogaa, suldaan nabad baa lagu ogaa. dadka Soomaaliland waa dal nabdoon oo dimuqraadi ah. dadkiisuna waxay ku heshiiyeen inay codkooda isbedelka ku sameeyaan. qori lagama ogola cid aan ahayn ciidamada ammaanka. cid kasta oo ka talowda xuduudda qarnimadana waxay ku amran yihiin inay gacan buuxda ka qaataan, waxayna u leeyihiin awood ku filan iyo sharci dhammaystiran. waa wax kala gaar ah tabashada iyo qardumisnimadu. kii tabanaya sida odayaashii dhaqanka ee halkan iigu yimid waa soo dhaweynaynaa, waa u garaabaynaa, wixii ay leedahayna waanu maraynaynaa. balse qofka sida suldaan wabar qardumiska ah ee qoriga qaata waxaanu ka qaadi doonaa tallaabo sharciga waafaqsan. xisbiga kulmiye waxaa muuqatay ismaandhaaf iyo hirdan kaadirka xisbiga kulmiye. qaar ka mid ah ay maalmahan saxaafadda soo bandhigaysay damacooda siyaasadeed oo ku wajahan kursigan aan ku fadhiyo. waxaan leeyahay kursigan anigaa ku fadhiya oo xisbiga ii gartay. mustaqbalkana waan u sharaxanahay. saxna maaha inaad isku kay dul qabsataan. wixii iga dambeeya ilaahayna gaadhsiiyo. xisbigu waa xisbi dimuqraadi ah oo waa lagu tartamayaa dhexdiisa. waxaana ila sugaya xisbiyo kale oo inala tartamaya. walaalayaal yaynaan cidla ku xiiqin, aynaan isku qabsan, yaynaan wax aan joogin isku colaadsan. kolley meel dad joogo qalooc iyo qardoofo laga waayo maayo. inaan ilaalino wadajirka xisbiga iyo midnimadiisa. waxaan hambalyo u dirayaa dhammaan dadka reer Somaliland meel kastoo ay joogaan munaasabadda sanadka cusub ee 2015. waxaan u rajaynayaa nabad, horumar iyo barwaaqo. qaranka Somalilandna waxaan u rajaynayaa guriyo goonnimo iyo inaynu gaadhno hibiladana qaran oo ah dowladnimo taamo ah oo caalamku aqoonsan yahay. insha allahu waynu gaari doonaa. waxaan leeyahay aan u sabirno, aan u sacyino, mar walbana aan lahaano saadaal wanaagsan iyo niyadsan.